Assalaamu calaykum saaxiibayaal ku soo dhawaada war degdeg oo haddana soo gaaray. Maamulka Puntland ayaa hawada ka celiyay kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Sacdiye Salaad Samatar oo ka soo jeeda magaalada Boosaaso. Marka ayaa lagu bixiyay in gabi ahaanba la celiyo diyaaradan oo sideedeeq raashin oo loogu talagalay dadku iyo abaaruhu saameeyeen. Arrintan ayaa ah caddayn khilaafka baahan ee ka dhaxeeya maamulka Puntland iyo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud. Diyaaradii sidee Sacdiye Salaad ayaa lagu amray inay ku laabato magaalada Muqdisho. Gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Sacdiye Salaad ayaa ku jirta xildhibaano fara ku tirisa oo Siciid Cabdullaahi Dani uu ku eedeynayo inay ka dambeeyeen khasaarihii ka soo gaaray doorashadii dowladda federaalka Soomaaliya. Arrintan ayaa wajigabax ku noqonaysa gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Sacdiye Salaad oo maalmihii ugu dambeysay ku jirtay dadaal sidii u gaarsiin lahayd deeq dadka ay saameysay abaaruhu ee ka soo jeeda deegaanada Puntland. Ficiladan ayaanan ahayn ficilo ku cusub maamulka Puntland. Horay ayaa looga bartay maamulka Puntland markii uu dhaco khilaaf ayaga iyo maamulka dowladihii hore ee ka talinayay Soomaaliya inay maamulka Puntland xanibaan ayraboorada, isu socodka gaadiidka iyo isu socodka bulshadaba. Maamulka Puntland ayaa hadda mid u muuqda mid sii gabagabeynaya xiriirka ka dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya. Wararka kale oo aan helayna ayaa sheegaya in ayraboorka magaalada Boosaaso uu ka bilowday dagaal u dhaxeeya ciidamada BMBF oo fulinaya amarka madaxweynaha Puntland oo ah in la celiyo diyaaradda Sacdiye Salaad iyo ciidamada BSF oo badanaa ka amar qaadan madaxweynaha maamulka Puntland. Ciidamada BSF ayaa ka amar qaata Asad Cusmaan Asad Diyaano iyo walaalkiis Maxamuud Cusmaan Diyaano. Ciidamada BSF ayaaba gabi ahaanba diidan in diyaaradda dib loo celiyo, kuna doodaya diyaaraddu xaq inay u leedahay inay ka soo degto magaalada Boosaaso kadibna la galo wada hadal iyo la fiiriyo wixii khaldan. Halka ciidamada BMBF diidan yihiinba inay diyaaraddu soo caga dhigato. Waxaa gabi ahaanba ayraboorka magaalada Boosaaso isqabsatay israsaasayn aad u xooggan. Wixii warar oo soo kordha daawadayaal waan la soo wadaagi doonaa insha Allah.